madaxa ololaha doorashada xisbiga UMP Xasan Cali Geele iyo wafdi heer sareeta oo hogaaminayo ka kooban wasiirro iyo xildhibaano ayaa maanta booqasho rasmi ku yimid gobolka Cali Sabiix. waxaa halkaasi si heer sare ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Cali Sabiix oo isugu jira siyaasiyiin, waxgarad, culumaa'udiin, hooyooyin iyo waliba dhalinyaro. waxaa halkaasi hadallo ka soo jeediyay qaar ka tirsan mas'uuliyiintii soo gaaray gobolka Cali Sabiix. soo dhaweynaa wafdiga ballaaran ee loogu yimid Djibouti uu hogaaminayo directorka Cali Geele Abubakar oo ku soo doortay inuu eleksiyonka UMP uu hogaamiyo ayaan horta soo dhaweynaa iyo wafdiga ballaaran la socda wasiirada leh dibiteeda leh mas'uuliyada leh ayaan horta soo dhaweynaa waxaan ku soo leenahay ku soo dhawaada degmada Casajoog iyo Binijoog ku soo dhawaada leenahay. waxaan doonayaa inaan dii sheego maxaa yeelay reer Djibouti oo dhan iyay sababta ugu leeyihiin ku soo noqo iyay aad ku dhufteen saddex shay carabtay ku dhufteen saddex gaashina waa saddexda ilaahay u jecel yahay iyaad weydiisateen madaxweynaha maxaa yeelay waxaad ka tidhaahdeen madaxweynow nabadaan qabsoonayna ilaahay baa jecel maxaa yeelay waxaad ka tidhaahdeen midnimadeennaanu qabsoonaynaa iyar noo joog ilaahay baa jeceltaan waxaad tidhaahdeen horumarkayagaanu qabsoonaynaayo inuu horumarkayagu xaggaa ku joogtaanu qabsoonayaa noo yar joog baad ka tidhaahdeen waxaad tidhaahdeen sumcadday Djibouti maanta leedahay iyaanu cabsoonaynaaye noo yar joog baad tidhaahdeen waa wuxuu ilaahay jecel yahay weeyaan waxaad weydiisateen reer Djibouti oo dhan maanta ilaahayna waxaan ka baryaynaa waxaan aan weydiisanoo dhan inuu noo hirgeliyo uu ku leeyahay kol haddii ay shacabkaygu igu leeyihiin soo noqo maantaan waxaan ka leeyahay inagu hogaamiya doorashadan dadkii igale soo noqo bartiyaashu wayna daba joogtaa maxaa yeelay innigaa ka horreeyo bartiyaashu oo UMP oo dhan ku jirto waxay shireen Janvier 8 ay ku qatmeen ad inagu waxaad tidhaahdeen iyay ku qatmeen waxay arkeen inagu dariiqa tooradeen inuu dariiqii ugu toosnaa yahay oo iftiin leh iyay ku gooyeen ay ku qatmeen. wafdigan oo hogaaminaya madaxa ololaha doorashada waddanka Djibouti Cali Geele Abubakar ayaa lagu sii godol xaaraya madaxweynaha waddanka Jamhuuriyadda Djibouti inuu noqdo mar kale madaxweynaha xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee haatan dalka xukuma ee UMP. Maxamuud Cusmaan Bulxaan, TV-ga Universal, Cali Sabiix.